wiilkan waxa loo yaqaanaa waan gariiray waxa uu ka mid yahay dhalinyarada TikTok ugu caansan. haddaba wiilkan ayaa been laga sheegay waxaana ka been abuurtay wiil lagu magacaabo Wariye Cabdulqaadir Siisi. wiilkan waan gariiray ayaa sheegay in aanu cafinayn wiilka lagu magacaabo Wariye Cabdulqaadir Siisi oo been ka sheegay. haddaba wiilkan ayaa markii hore muuqaalo khaldan iska soo duubi jiray oo TikTok soo dhigi jiray. muuqaaladii khaldanaa ee uu iska soo duubi jiray ayaa sababay in wax khaldan laga aamino. haddaba muuqaalka intaanan bilaabin like saar siduu dad badan u gaadho anagana dhiirigelin nagu noqoto. asxaabtaadana u sii sheeri gare saan u helo saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga ah. wiilkan kuu muuqda waxa loo yaqaanaa waan gariiray waxa uu ka mid yahay dhalinyarada TikTok isticmaasha ee caanka ah. haddaba wiilkan ayaa been laga sheegay oo waxa la sheegay wiilkan inuu qaniis yahay balse wiilkan qaniis maaha. haddaba wiilkan dhalinyarada ah ee waan gariiray ayaa laga been abuurtay waxaana ka been abuurtay wiil wariye ah oo page Facebook leh oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Siisi. haddaba wiilkaas ayaa ka been abuurtay waxa uu sheegay inuu wiilkan waan gariiray inuu qaniis yahay oo waxyaabo xun lagu sameeyo balse waxyaabahaas wiilkaas uu sheegayo qof islaam ah laguma sheegi karo aniguna halkan kama sheegi karo. haddaba wiilkan dhalinyarada ah ee loo yaqaano waan gariiray markuu arkay muuqaalkii laga been abuurtay ee uu soo sameeyay wiilka lagu magacaabo Wariye Cabdulqaadir Siisi. muuqaalkii waxa arkay familigeygii oo way yaabeen oo waxay la yaabeen ninkan beenta sheegaya ayuu yiri. kadibna muuqaalku waxa uu ahaa muuqaal runtii been ah oo waxa aan ahayn ayuu igu sheegay oo nin raga lagu sheegin. haddaba wiilkan loo yaqaano waan gariiray waxa uu sheegay qofkii mar dambe ku yiraahdo waa qaniis in aanu cafin doonin. anay cafina maalinta dambe sida qaniis isu qortiin ama wax xumada isu qortiin wallahi oo billahi oo talaaha kula iltaan ay wada fadhiyaa ina qof cafinayna maanta la bilaabo. waxa kale uu sheegay in aanu qaniis ahayn oo uu yahay nin boqole ah. wallahi oo billahi oo talaaha kula saddexna magac ilaahay wax taweyn ma jiro may aatu dhaarto wallahi diinta Allah ida saarato diinta islaamka xuluud dheer ma ahan ina qaniis ahan fast one. waxa kale uu sheegay wiilka wariyaha ah ee beenta ka sheegay in aanu cafin doonin ilaa uu raali gelin ka soo bixiyo mooyaane. talabaad wiilkaas hadda ashiday maalinta yoom qiyaamo wallahi oo billahi oo talaaha na cafinayn ilta u fadhiga. haddaba wiilkan dhalinyarada ah sharaftiisa waxa dhaawacay wiilka wariyaha ah. wiilkan waxa ku adkaatay xataa inuu gabadh shukaansado maadaama nin rag ah uu yahay oo uu doonayo inuu mustaqbal samaysto. wiilkan waxa uu sheegay in aanu cafin doonin wiilka wariyaha ah ilaa uu raali gelin ka soo bixiyo mooyaane. balse ma wanaagsana qof islaam ah inaad sharaftiisa ku ciyaarto. markaad u fiirsato muuqaalku soo sameeyay wiilka lagu magacaabo Wariye Cabdulqaadir Siisi muuqaalkii sharaftiisa uu ku dhaawacay wiilka waan gariiray. muuqaalka markaad u fiirsato kumitiyada dadku ka soo bixiyeen markaad eegto dadka caqligoodu taamka uu yahay waxay wiilkan u sheegayaan inuu khaldan yahay oo qof islaam ah aanu sharaftiisa ku ciyaarin. waxay qaar kale u sheegayaan inuu waxan uu soo gudbinayo inay been yihiin. sidaynu ognahay dad badan oo baraha bulshada caanka ah ayaa muuqaalo beena sameeya. bal fiiri wiilkan waa wiil dhalinyaro ah oo boqole ah oo doonaya inuu mustaqbal samaysto balse sharaftiisa waa la dhaawacay oo xataa waxa ku adkaatay inuu wax shukaansado. haddaba wiilkan ayaa markii hore muuqaalo khaldan iska soo duubi jiray oo TikTok soo dhigi jiray balse wiilkan muuqaalada khaldan ee uu iska soo duubi jiray ayaa u horseeday in wax khaldan laga aamino. waxa uu sheegay wiilkanu inuu gabi ahaanba iska daayay muuqaaladii xumaa oo mar dambe aanu soo duubayn. asxaabtayda qaaliga muuqaalka like saara siduu dad badan u gaadho anagana dhiirigelin nagu noqoto. asxaabtiinana u sii sheeri gareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga.